mowduuceena maanta waxaynu ku aadi doonaa koonfur bari Aasiya oo ay dhacdo Jamhuuriyadda Indoneesiya. Indoneesiya waa jamhuuriyad madax-bannaanideedii ku dhawaaqday 1945 waa markii dagaalkii labaad ee adduunka laga guuleystay Japan, balse isla waqtiga ay toos u qaadeen madax-bannaanideeda oo waxaa haysatay Holland oo isku dayaysay inay weli kasii madaxaato maamulkeeda ilaa sanadkii 1949 ayaa ay kula jireen halgan aad u dheer oo ugu dambeyn December 1949 ayaa ay Holland u aqoonsatay dowladnimadeedii. Indoneesiya waa dal ka kooban ilaa 17,508 jasiiradood waxaana ku nool dad gaadhaya 255.4 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa waddanka afraad ee ugu dadka badan la adduunka, waana tirakoobkii la sameeyay 2016. Muslimiinta waddankan ku nool ayaa ah 86% oo u dhigantaa ilaa 230 milyan oo qof. Waxa kale oo ku nool Kiristaan iyo kuwo kale oo haysta diinta Buudhiiska iyo Hinduuska. Indoneesiya waxa ku taala jasiiradda adduunka ugu weyn oo ay ku nool yihiin kala bar dadka Indoneesiya. Dalka Indoneesiya waxa ku nool ilaa 300 oo qowmiyadood oo ku hadla 742 luqadood iyo lahjado kala duwan. Qowmiyadda ugu badan ee Japanese-ka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaanba ku awood badan waddanka, waxaana ka yihiin 42% dadka ku nool Indoneesiya. bulshooyinka kale ee ku nool waddanka ayaa waxaa ka mid ah Sundanese-ka, Malayska iyo Madoranese-ka. Sidoo kale waxaa ku nool tiro yar oo ka soo jeeda Shiinaha, Hindiya, Yurub iyo Carabta, kuwaasi oo ku urursan magaalooyinka xarumaha ah. Luqadda Indoneesiyaanka ayaa ah luqadda qaranka, waana mid ka mid ah luqadaha ka soo jeeda Malayga, waana luqadda lagu dhigto iskuulada, sidaa darteed ayaa ay ugu hadlaan dhammaan dadka reer Indoneesiya. waa luqadda ganacsiga, siyaasadda, warbaahinta qaranka iyo waxbarashada. Jakarta ayaa ah caasimadda Indoneesiya waxaana ku nool ilaa 20 milyan oo qof, waana tirakoobkii la sameeyay 2014. dabcan hadda intaa waa ka badan yihiin. waxay dhacdaa xeebta waqooyi galbeed ee jasiiradda Java. waxaa ku yaala gegid diyaaradeed oo caalami ah, waana marinka ugu weyn ee laga soo galo Indoneesiya. waxaa la yidhaahdaa Sukarno Hatta, waxaana loogu magacdaray madaxweynihii hore ee Indoneesiya ee lagu magacaabi jiray Sukarno. waxaa sidoo kale ku yaala masjidka Al-Istiqlaal, waana mid ka mid ah masaajidada ugu weyn koonfur bari Aasiya iyo kan shanaad ee ugu weyn adduunka. waxa uu halkii mar tir ahaan qaadaya 200,000 oo qof. dhulka uu haysta ayaa ah 97,000 oo mitir laba jibaaran, waxaanu ku fadhiyaa dhul dhisme oo ah 37,000 oo mitir laba jibaaran. waxay maada muslimiin ku cibaadaysanaysaa iyo sidoo kale kuwo kale oo aan muslimiin ahayn oo dalxiis ahaan u yimaada. waxaa la dhisay xilligii madaxweynihii u horeeyay ee Axmed Sukarno 1961, waxaana la dhammaystiray 1978 xilligii madaxweynihii Axmed Suharto. dalka Indoneesiya waxa ku badan fulkaanaha marka loo eego wadamada caalamka, xataa waxa uu ka badan yahay wadamada Japan iyo Mareykanka.